kale waxaan rayna waa qofkiisii raalliyooni kaan qabin kuurana guryooda kulan wanaagsan ku soo dhawaada Salma Vlog and Entertainment. waxaan idin haynaa maantana qisooyin aan isleenahay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa hadda ku wajahaya gudaha Soomaaliya iyo goobaha ay Soomaalidu caalamka ka joogaan. ku soo dhawaada xubinta toosiyaha jacaylka. qisadan waxa aan kaga hadlaynaa dhibta ay qabaan dumarka xaaska ah qaarkood oo ayna kala kulmaan ragga ay u dhaxaan kulana dhaqma fal ka baxsan bini'aadanimada. waxaa ka mid ah arrimahaasi jirdilka, qalbi jabka lagu sameeyo, ereyada aan naxariista ahayn oo ay kula hadlaan. waxay noqdeen sanadihii dambe tirabeel lagu sameeyo haweenka la qaba badankooda. tacdiyadaas oo dhan ha ku yimaadaan marxalado kala cayna oo isbiirsaday. waxaase la isweydiiyey ma mudan tahay in gabar reerkeeda mas-uuliyaddeeda ku xil saareen markaad guursanaysay inaad garaacdo, hadal dhaawac ku ah ku tiraahdo, bahdil asaageed dariska la'ah ama isku shaqada yihiinna aad ku samayso. dhacdooyinkan oo kale ayaa haysta gabdho badan oo xaas ah kuwaasoo guryo iyagu ay leeyihiin ku nool, hoos joogana raggii ay isguursadeen. mid ninka lagu qasbay ama jacayl ay isku guursadeenba ha noqodaane. ciilkaambiga la bado oo inta indhaheyda ka dhammaan, hawsha oo lagu qasbay inay waqtiyo dheeraada ay galaan. gabdhaha qaar iyo xitaa in lagu qasbay inaysan guriga ka lug bixin bannaanka oo aysan aadin. waa dhibta lagu hayo marwooyin xaas ah oo Soomaaliya meelo kala duwan ku sugan. taas ayay haween badan dhaxal siisay inay ka cararaan raggii ay wada joogeen xaaladda ay ku jiraan oo ay u adkaysan waayeen. kuwo waxay go'aansadeen in la furo oo ay gurigaas burburiyaan, kala tagna meesha ku dhaco. halka qaarna cabiidkaasi aan kala joogsiga lahayn weli ay kala kulmayaan raggii ay u dhaxayeen. guurku waa harqabow haddii la helo xuquuqda la isku leeyahay oo ay fahmaan labada qof ee nolosha midooday. guurku waa raxmad laba qof Rabbi dhex dhigay oo haddii ubad ay kala helaanna noqon doonta mid farxad gurigaasi bukaacisa. gabdhaha qaar iyaguna inta laga tirsanayo waa in ay maseer xadka bax ah kula dhaqmaan raggooda, hubsiimo la'aan, ficillo aad u argagax badan qaarkood sameeyaan oo ay ku jiraan xitaa inay nafta u dhaafiyaan ragga ay wada joogaan. sharkacuudu billah. fariintan waxay ugu dambeyn leedahay ogow, raxmadda iyo reenreynta nolosha waa adigoo hela qof aad isku fahantaan xaaladda markaas jirta, wada qaybsataan dhib iyo dheef, ku dareensiiya macaanida nolosha ee ma u baahnid ruux ku xurmo tira, ku qiimo beeliya oo dadka kuu tusa inaad tahay shaqsi xun oo gurigiisa dayacay. kartiyo awood bayliin arxan iyo adeecbayliin sharafiyo astaama wanaagsana. ka sokow dumarka la qabo ee dhibkaas la kulma, waxaa iyana jira kuwo nolosha inay jaranjarada ama salaanka in ay u koraan doonaya oo jacayl jilitaankooda iyaguna ciqaab ragga iyo dumarka mid uun ka timaada oo xaalado burbur ku dhaxalsiiya ugu dambayn. dariiqa wanaagsan lama diidee
calab ha isku keen doora dokhii calab ha isku keen doora guud ahaan daawadayaal intaasaynu kusoo gabagabeynaynaa xubinta toosiyaha jacaylka anigoo xasan xayi cabdulaahi ayaa soo jeedinayay intaan dib dambe isku arki doonna daawadayaal sidaas iyo nabadgelyo dariiqa wanaagsan lama diiday dokhii calab ha isku keen doora dokhii calab ha isku keen doora